qisadan waa qisa aad u qiimo badan oo ka hadlayso nabigeena sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar iyo Umar. qisadan waxay ka hadlaysaa nicmada iyo gallada rabbigeena subhanahu wa ta'ala uu siiyay adoomadiisa maalinka aakhir in la isweydiin doono. nicmada rabbi subhanahu wa ta'ala uu siiyay adoomadan nicmadaas ha weynaato ama ha yaraato, rabbi subhanahu wa ta'ala wuu weydiin doonaa adoon walba nicmada iyo gallada uu siiyay. waayo rabbi subhanahu wa ta'ala adoomadiisa nicmo badan ayuu siiyay, gallad badan ayuu siiyay, sidii quraankiisu uu ku sheegay wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. haddaad isku daydaan inaad koobtaan oo aad tirisaan ilaahay galladihiisa iyo nicmooyinkiisa ma koobi kartaan. marka qisadan waxay ka hadlaysaa nicmooyinka rabbi subhanahu wa ta'ala adoomada uu siiyay maalinka aakhir in la weydiin doono. xadiidkan waxaa soo saaray Muslim, waxaana warinaya Abu Hurayra radiyallahu anhu warda. wuxuu leeyahay Abu Hurayra, habeenada ka mid ayaa waxaa soo baxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa soo baxay oo banaanka u soo baxay. gurigiisa ayuu ka soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam. markii uu soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu la kulmay Abu Bakar iyo Umar ayuu la kulmay. ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka raali noqdee. markaas ayuu yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam, war maxaa idin soo saaray saacadan? Abu Bakar iyo Umarow, maxaa saacadan idin soo saaray? maxaa habeennimada idin soo saaray oo guriyaashiin idinka soo saaray? markaasay waxay ugu jawaabeen, aljuuc ya rasuulallah, rasuulka ilaahay oo gaajo ayaa na soo saartay, rasuulka ilaahay oo baahi ayaa naga soo saartay, guriyaashana waa gaajaysannahay, baahi ayaa na hayso. markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, waxaan ku dhaartay midka nafteyda gacantiisa ay ku jirto waa ilaahay subxaanahu wa tacaala, aniga xitaa waxaa i soo saaray gaajidii idinka idin soo saartay ayaa gurigayga iga soo saaray. Abubakar iyo Umarow, idinka waxaa idin soo saaray gaajo, anigana sidoo kale waxaa i soo saaray gaajo ayaa gurigayga iga soo saartay ee na keena. markaasaa intay baxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay raaceen. markaasay waxay u imaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Abubakar iyo Umar ayagoo isla socda waxay imaadeen nin reer ansaari oo saxaabada nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam ka tirsanaa gurigiisa ayay imaadeen. gurigii markay imaadeen ninkii maysan arkin oo gurigu ka maqnaa. ninkii waxaa soo dhaweysay oo markiiba aragtay ninkii xaaskiisa ayaa aragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam, Abubakar iyo Umar ayay aragtay. markaasay waxay ku tiri, soo dhawaada rasuulka ilaahay oo soo dhawaada. markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi, ayna fulaan, aaway hebel, aaway ninkaaga? markaasaa waxay tiri oo ugu jawaabtay, ninkayga wuu baxay asigoo noo doonaya biyo macaan, biyo ayuu noo keenayaa oo biyo aan cabno. markii halkaas ay maraysay sheekada ayaa waxaa siikadiisa ku imaaday ninkii reer ansaarka ahaa. gurigiisa ayuu ku soo laabtay. markaas wuxuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo labadii saxaaba Abubakar iyo Umar oo gurigiisa ay joogaan. markaasaa wuxuu yidhi, alxamdulillaah, ilaahay maxad u sugnaatay, maanta wax iga wanaag badan oo iga sharaf badan oo xagga marti ahaanta ma jiro. maanta waxaa ii imaatay marti aad u qiimo badan, marti aad u sharaf badan ee ii imaatay. waayo waxaa u soo martay oo gurigiisa imaaday waa nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam, Abubakar iyo Umar weeye. nabigana uu yahay ummadan kan ugu khayr badan, Abubakarna uu yahay ummadan nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam kan ugu khayr badan, Umarna uu ku xigo. waayo dad aad u qiimo badan, dad ilaahay agtiisa sharaf badan ku leh ayaa u soo martay u imaadeen. markaasaa wuxuu yidhi, alxamdulillaah, maanta waxa iga marti fiican ma lahan, waxa iga marti sharaf badan ma lahan maanta. markaas ayuu soo dhaweeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisa saxaabo. intuu tagay ayuu wuxuu u keenay laan timiraha ayuu u keenay, maadaama ay yihiin
dad marti ah martidana waa la sooraa oo waa la maamuusaa oo waa la qiimeeyaa intuu baxayba wuxuu u keenay laan timiraha ayuu u keenay si ay ugu daahaan oo gaajada ay ugu ceshtaan markaasoo intuu baxay qofkii wuxuu qaatay middo ayuu qaatay wuxuu doonayaa saxaabigan aadka u qiimaha badan inuu neef u soo qalo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo labadii saxaabo neef ari ah inuu u soo qalo ayuu doonayaa mindidii ayuu qaatay si aayar ayuu u dhaqaaqay markaasa waxaa arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga oo mindo wato wuxuuna ku yidhi waxaan idinkala digayaa neefka aad maalataan oo caanada idin leeyahay inaad noo soo qashaan yacni ha soo qalin wey neefka caano wuu leeyahay oo aad maalinaysaan oo aad ku caddaysanaysaan shaahigiina ha noo soo qalin midkaas iska daa markaasaa ninkii intuu baxay wuxuu soo qalay neef erayuu u soo qalay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo labadii saxaabo markaasay cuneen nebiga calayhi salaatu wasalaam neefkii arig ayay cuneen iyo sidoo kale waxay cuneen laantii timirta ah biyina way cabeen oo way dhergeen markii ay dhergeen oo oonkii uu ka baxay xaraadkii uu ka baxay gaajadiina ay ka tagtay oo ay wada dhergeen ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abuubakar iyo cumar wuxuu ku yidhi abuubakar iyo cumarow waxaan ku dhaartay ilaahay nafteyda gacantiisa ay ku jirtay aan ku dhaartay nicmadan maalinka aakhar waa la isweydiin doonaa oo guryaashiin waxaa idinka soo saaray gaajo gurigiina maydin ku noqonin ilaa aad ka asiibteen oo aad ka cunteen nicmadan oo aad ka dherigteen maalinka aakhar waa la isweydiin doonaa uma latus'alunna yowmaidin can innaciim aakhar markii la gaaro oo ilaahay hortiisa la istaago nicmooyinka faraha badan waa la isweydiin doonaa cunnadan aad cunteen oo gaajo ay idin geysay oo calooshiina aad ku ceshateen maalinka aakhar waa la isweydiin doonaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam u fiirso saxaabadiisu wuxuu barayaa ilaahay nicmadiisa ha yaraato ama ha weynaato in la isweydiin doono maalinka aakharo guryaashooda ay ka soo baxeen ayagoo gaajaysan ayagoo gaajo ay hayso wax ayay cuneen calooshooda ay ka ceshteen saas ay tahay waa dadka ugu qiimaha badan haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalinka aakhar waa la isweydiinayaa nicmadan كم إمسان نعمة إلهي ومصية ميق النعمة إلهي نوقل ذيستي ميق وحيا رضي إلهي نسيه سبحانه وتعالى حدنا الشكرين تدنا لا يا حي إن إلهي سبحانه وتعالى أبو شكرنا نعموين كرب سبحانه وتعالى إلهي نسيين مرني وي زيادان مرنا وي مسقامان وحي كو زيادة مركي إلهي أبو شكريو وحي نكون مسقاما يقبابان إلهي شكرين تسمركي لسكوايو إلهي سبحانه وتعالى نعمة نودا إنسيو كو شكرينا إلهي سبحانه وتعالى حنقدقو